qofkan arkaysaan waa ogbaad waa clientigeyga way soo wacday daahir gurigeeda rabtay inay gadeertay waxay soo raday daahir gurigeyga suuq intuu ka joogo ma garanay laakiin gurigeeda markaa wuxuu marayay $450,000 soo marayay lacagta balance ay ku hartay markaa waxay $260,000 waxa weystay inay u horeyso lacag $190,000 su'aashaasi way timo sax way ugu tiri ma waxaan ku dhahay su'aashaasi ma waa khalad lacagta ku ma hareyso so dan waxaan tusay the math breakdown kan tusay guriga wax ku kacayo dhan so dadku badan waxa weystaan guriga markay iska gadayaan basically guriga number waxay ka arkayaan zero dan waxay ka jarayaan balance ku haray and then waxa weystaan gurigooda qiimaha inuu ka joogo laakiin saas uma shaqeeyaan so maanta waxaan ku siinayaa the real breakdown ku siinayaa laakiin haddii aad rabto gurigeeda inaad gado fadlan dhamayso videogan saw ogaato the total breakdown ka ogaato xalbo aragto okay ku bilaabo hadda so ogwaad gurigeeda waxa $450,000 waxa balance ku haray dan ka jarno $260,000 waxa wax loo yaqaan jirta mortgage payoff career fee $35 ah wax loo yaqaan real estate professional service fee jirta oo fee-ga ku kacayo commission ka waa $27,000 waaye closing service fee waaye ogo waxaan aan ku sheegay commission kan it's totally negotiable way dadka qaar waxa ku judge kareen 5% dadka qaar 6% laakiin generally meesha ugu hooseysa waa 5% way so closing service fee waa $550 Minnesota wax loo yaqaan state D tax ajra oo dad hadda Hennepin County degan tahay waa 0.034% way hadda inta kala degan tahay waa 33% way hadda kana kale wuxuu noqday $1,530 wax loo yaqaan jirta abstract and title fees oo ku kacayso $650 ah wax loo yaqaan recording fees jira in lagu record gareeyo oo ku kacayso $100 wax loo yaqaan jirta admin fees oo $595 ah iyo haddii guriga uu guri old uu yahay kale wuxuu leeyahay wax loo yaqaan well disclosure filing fee oo $35 ah iyo wax loo yaqaan conservation fee oo $10 ah oo basically environmentiga loogu talagalay so gurigan hadda aragto gurigaas wuxuu ahaa balance gabadha ku haray $260,000 oo ahaa iyo lacagta ku kacayso noqotay almost $30,000 505 so waxa isku noqday total $290,505 hadda ka jirto guriga qiimaha lagu iibinayo $450 ah ka jirto $290,505 gabadha waxa u harayo ayada $159,495 oo harayo laakiin nasiib wanaag gabadhan gurigeeda waxa lagu iibsaday literally waa $16,000 over asking price oo guri 16,000 oo qiimaha ka badan ka baxsan qiimaha lagu iibsanayo qofkii buyerkan wuxuu even u saxay wax loo yaqaan appraisal gap u saxay maadaama gurigeeda guri aad u maintain gareyso aha guri ma sha Allah waha oo wax walba cusbaayeen so hadda ku fikirayso gurigaad inaad gado fadlan waxaan hal numberka naga soo bac bulshada Soomaalida waxaan ahay the only real estate company oo bulshada Soomaalida video noocan kale soo gudbiyo oo fahansiyo soo shaqeeyo guriga processiisa waxaan noo soo dirtaa guriga addresskiisa noo soo dir iyo balance inta kugu hartay markaad ma soo dirto marka noo imato linkan ku soo diri doona consultation naga sameeysanaysa waxa ogaanaysaa that day gurigaada qiimaha inta ka joogo suuqa oo saxda ka ogaanaysaa waxa ogaanaysaa guriga wax ku kacaya ogaanaysaa waxa ogaanaysaa exactly waxa adiga lacag balance ku haraya ugu marka imaato gurigaada inaad gada qasam maaha ee kaliya waxa ku ogolanaysaa ina fikrad aad fahanto process ka dhan soo shaqeynaa fahanto baan ku sheegaynaa waxa kale ku sharaxaynaa wax loo yaqaan framework aan isticmaalno marka guriga aan ku iibino iyo sida uu market gareeyna gurigaada everything organized that day so inshallah numberka naga soo wac hadii aragto mortgage-kaada inaad ku baxshan 7 sano nagu soo booqo webinarkeena fastermortgagefreedom.com. Assalamu alaykum.